الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سورة التوبة ما دام أي كساب سنتهي وحي عليها هذا عن صور شاقني وحي أقيب سنتها إلى 5 ميلود مقدمة إلى 4 ميلود يقيب سنتها مالي 4 ميلود مقدمة وان صور مرني أو حريرك دحمري كري مؤمنين إيا مشركين إيا مؤمنين إيا أهل الكتاب كان كانوا حوي مركي دقالك تبوك لو تبابو شيء سنة مركز وحياله جري إن لقى هذلو أو بليه لخلدي أو سيئة وسنيد أنا أسعنين إيا مسلمين تأو بحلي رئيس عسليسين أو كل جن الدنيا dadkii muuminiinta ahaa kuwaasoo si wanaagsan muuminiinta si wanaagsan loo canaantay oo loo caqli celiyay oo loo hanjabay taasna waan soo marnay. hadda halkan waxaan ka galaynaa meesha kale waxa weeye dagaalkaas intii uu socday iyo wixii dhaxdhacay dadka sidee kala noqdeen. dagaalka Tabuuk sanadkii 9aad weey oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam markaas wixii ka dambeeyay xooga yar sanad iyo meelaha soo noolaa sanadkii 9aad way ahayd isagoo kolka da'diisa ay weyn tahay oo nin yar oo san ahayn iyo haddana duulaanka sida uu adag iyo horkacay kolka duulaankaas maadaama waqtiga oo dhibaato badnaa sidaan soo sheegnay dadkii islaamnimada sheeganaya waxa ka soo dhaxbaxay dad badan oo munaafiqiin oo ku dhex shaqaysanay. kolka waxyaalihii duulaankaas ka dhashay iyo maanta markaysa oo markii duulaankaas socday dad intay u kala baxeen wixii bay suurada noo sheegaysaa. xaqiiqdii baa soo baxday nin walba xaqiiqdiisa waxa la arkay munaafiqiin fara badan oo ciida ka badan oo kolka islaamkiina salaadii cibaadadiina aad arkaysa sida kullu tukunayaan zakadii kullu bixinayaan nidaamka islaamka ku shaqaysanay haddana islaam aan ahayn. nimankaas waxay isbedeen markay arkeen islaamka inaan ka hor imaan karaynin awoodiisa ayna raalina ka ahayn waxay dani baday inay islaamkii qabsadaan ayna waan ku soconaynaa hoos ahaan ay kala dagaalamayaan ee islaamka cadaawidiisa ay la haystaan. kuwaasaa ugu darnaa waxyaalaha islaamka khalkhalinay kuwaasba aad ugu darnaa munaafiqiintaas faraha badan oo ilaa nabigeena intuu noolaa bal waqtigaas waa waqtigii 9 sano la jooga Madiino islaamku 22 sano laga jooga markaas. kuwaas iyagoo sidaas u buuxa ayaa nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam. zamankii sayidina Abubakar sidii bay u jireen wahaakada sidaas ay u jireen ilaa waagii siday ugu dhex jireen ay u baabi'inayeen diinta sida maanta ay tahay. dadkaas waxyaalaha ay ku dhaqaaqeen oo soo jiray oo taariikhda la soo socday baa saa u galay. kolka kuwaas islaamka sheeganayay laakiin aan islaamnimo dhab aan ahayn oo meesha ka soo baxay bay aayadahan ka hadlayaan. low kaana hadduu ahaado nabi maxamedow maa dacawtahum ilayhi waxaad ugu yeedhay aad kuwaan munaafiqiinta aad ugu yeedhay caradan qariiban dheef dhow hadduu ahaado shay dheef oo dheef adduunye oo dhow macnaa waa sidee si dhib yar lagu qaadan karo shaygaad ugu yeeraysa hadduu yahay. low kaana hadduu ahaado maa dacawtahum kuwaas waxaad ugu yeedhay ilayhi isaga ugu yeedhay caradan qariiban shay carad ahoo soo diriyey oo dheef ah oo dhow macnaheedu waxa weeye si dhib yar lagu qaadan karo hadduu ahaado iyo wasafaran safar hadduu ahaado safarkaasoo qaasudan dhexdhexaad ah oo qumaatin u dhaweyn qumaatin u fogeyn hadduu ahaado la tabacuuka way ku raaci lahaayeen bixitaanka la baxaya aad baxaysay way ku raaci lahaayeen. macnaha waxa weeye dadkan adduunyay fiirsanayaan haddii dadka lagu duulayo ay yihiin dad jilicsan dad fudud maalna haysto hadday yihiin kolkaa maalkoodii waa maal si sahlan lagu qaadan karo. tan kale
markuu maalkooda si sahlan lagu qaadan karo oo sidaas u jiljilicsan yihiin oo lagu xoog badan yahay weliba haddii meel dhow ay degan yihiin oo aan aada u fogeyn haddii labada ay kulanto way ku raaci lahaayeen laakiin maanta waxaa muuqata dheefta qaniimada oo meesha laga rabaayo mid sahlan ma ah ruum oo deed sida America maanta oo kale adduunku tahay oo kale ku ahay iyo lagu duulayo kuwaasi sida dheef loogu soo helaa kolka dheefta la raadinayo qaniimada ah waa dad xoog badan wey si sahlan aan wax loogu qaadan karin tan kale safarka iyagoo loo safrayo lagu duulayana bil buu soconaya bil baa la soconaya ma dhow kolka labo isku darsaday duulaankaas iyada oo maanta ma arkaysaa qaniimo haddii la yidhaaha laga soo helay ay si dhib badan lagaga soo helaa iyagoo fog iyo isku darsantay kolka waxaa la yidhi nimankan hadday daacad yihiin waxaas ma fiiriyaan haddii waxaad ugu yeeraysay ay tahay qaniimo dhow oo si sahlan lagu qaadanayo oo dadka haysta ay taag daran yihiin oo laga xoog badan yahay safarkan meel dhow uu yahay way ku raaci lahaayeen maxaa yeelay adduunyo raadis weyn laakiin labadii midna ma ah ilaahay baa caddeeyey waxay u harayaan dad haray baa laga hadlaya oo soo raaci waayo nabiga duulaankii soo bixi waayo ilaahay waxba kama qarsoona duulaankii bay soo raaci waayeen way hareen iyaga oo maal badan iyagoo caafimaad qabo iyagoo wax kastaba haysto iyo duulaankii ka hareen kolka sababta ugu hareen buu ilaahay sheegaya waxa weeye waxaa la raadinaya qaniimada ah wax si sahlan lagu heli karo ma ah dad xoog badan gacantiisa ku jirta oo waxaa ka sokeeyo dhiig badan oo daato dhaawac badan ayaa ka sokeeyo tan kale meel dhowna ma ah kolkaa kullu maadaama faa'iido adduunya ay u shaqaysanayeen meesha faa'iidada dhibaatay ku arkayaan uma arkayaan sidaa daraaddeed baa kaaga hareen wey low kaana hadduu yahay maa dacawtahum ilayhi caradan qariiban shay yacni soo diriye oo dheef ah oo dhow si sahlan lagu qaadan karo qariibnimada waxaa weeye si sahlan lagu qaadan karo wey dadkooda aan xoog badnay iyo wasafaran safar hadduu yahay waxaad ugu yeedhay safarkaasoo qaasidan dhexdhexaad oo meel fogna aan ahayn meel dhowna aanan ahayn hadduu yahay latabacuuka way ku raaci lahaayeen kuwan fi lkhuruuji ila alghazwi duulaanka aada u baxday ay kugu raaci lahaayeen walaakiinse kuma ay raacin maxaa yeelay walaakiinse lagu noqyahay bacuudatu waxaa fogaatay calayhim iyo korkooda munaafiqiinta ah ashuqatu masaafadii dhibleyda ahayd ayaa ku fogaatay masaafo dhib badan wey bil baa loo soconaya kolkaasaa dadka loo socdana dad khatar ay wey nin iimaan le maa nin kale wadnaha ma siin karo ashuqatadu waxaa la yidhahda almasaafatu shaaqa masaafada dhibka badan jidka la maraya dhibaato lagala kulmo oon sahlaneyn wey kolka iyada oo fog iyo masaafadiina ay tahay masaafo dhib badan dhibley ah ay tahay walaakiinse lagu noqoyaa bacuudad waxaa fogaatay calayhim korkooda ashuqatu masaafadii dhibleyda ahayd iyaa fogaatay korkooda ku fogaatay kolka sidaa daraaddeed bay kuu raaci waayeen wey wasayaxlifuuna iminka dagaalkii baa lagu jiraa dagaalkii duulaanka lagu dhex jiraa kolka dagaalkaas marka laga noqdo nimanka sidaa u haray madiina loogu tegaya nimanka sababtaas u haray madiina loogu tegaya markii madiina loogu tago way cudur daaran doonaa cudurdaarkoodii baa la sheegaya wasayaxlifuuna way dhaaran doonaan markaad madiina ku noqotaan kuwaas sidaa u haray way dhaaran doonaan billaahi ilaahay bay ku dhaaran doonaan maxay ku dhaaranayaan law istatacnaa haddaan awoodno bixitaanka haddaan awoodno min jihati almaali iyo min jihati quwati albadani haddaan ku awoodno oo haddaan maalna aan haysano ku tabaabashaysano inagana aan fiyownahay haddaan labadaas aan ku awoodno la kharajnaa waan bixi lahayn macakum idinku la jirkeena waan bixi lahayn oo idinka maanu harnayn waxaana reebay waxaa weeye xagga maalkana tabaabashaysigiisa ma awoodno oo waxaan ku baxano oo qumna maanu haysanin tan kale caafimaadka iyagana ashma ahayn
saasay ku dhaaranayaan markaad tagtaan sidaasay idinku cudur daaran doonaan maxaa yeele mu'miniintu way duuleen meeshii way tageen iyagoo nabadgelyo qabo iyay ka soo noqdeen kolkaa kuwaani foolxumay ku tahay sidaas arrintaas oo sidaas loogu duulay oo nabadgelyo lagu soo noqday iyaguna meeshii ka hadhay ay lahayn meeshan khatar baa ku jirto foolxumay ku tahay foolxumaday bay ku cudur daaranayaan kolka markii la tago hore baa loogu sii sheegay nabigeena calayhi salaatu wasalaam markaad tagtaan waxay idin oran doonaan iyagoo dhaaranay law istadacnaa la kharajnaa macakum idin oran doonaan wa ficlan sidii baa dhacday markii la soo noqday tabuuk oo madiine la yimid sidii bay ilaahay ugu dhaarteen hadalkii bay yidhaahdeen waxay kama tahay mucjizooyinka qaybka ah oo intayna dhicin nabigeena loo sii sheegay oo sidiina ay dhacday wasayaxlifuuna way dhaaran doonaan markaad madiine ku noqotaan billaahi ilaahay ba ku dhaaran doonaan law istatacnaa haddaan awoodno min jihati almaali wa min jihati asixati haddaan awoodno la kharajnaa macakum idinku la jirkiina waan bixi lahayn duulaanka laakiin ma awoodin xagga maalka iyo xagga caafimaadkaba saasay u dhaaran doonaan marka ilaahay wuxuu yidhi yuhlikuuna anfusahum naftooday halaagayaan markay saas ku cudur daaranayaan waxaan jirin markay saas ku cudur daaranayaan naftooday halaagayaan fi dunya waalaakhira adduunkuna way halaagayaanoo dhaarta ilaahay lagu dhaaranayo saas oo kale ah adduunku waa ku abaaruuba adduunku waa ku baaba'a aakharana cadaaba meel u yaal kolka iyagu waxay leeyihiin markay sidaas u dhaaranayaan lafihiina wax u tara oo idinku cudurdaarka la idinka aqbalo oo kolkaa wanaag aad ku noolata yaan la idin tibin yaan la idin daraamin yaan la idin shakinin taasi yaa u geynaysa oo faa'iiday muda inay ugu jirto laakiin ilaahay wuxuu leeyahay ku halaagsamayaan maxaa yeelay been lagu dhaaranaya al-aymaanu alfaajira tadacu diyaara balaaqica bal aymaanta dhaarta faraha badan ee beenta ah yacni guryaha iyo reeraha iyo waddanka waxay ka yeeshaa meel qafra oo cidla ah oo faa'iido lahayn iyay ka yeeshaa kolka taas adduunyada saas u halaagay aakharana dee waxa ka horeeyo wixii ay cuquubad ay ka mutaysteen iyagu dan bay moodayaan waa sida hadda iyo dadka ay u fikiraan wey dadka munaafiqiinta ah siday u fikiraan waa sida intaan yar ay ku badbaadayaan bay arkayaan xaqiiqda ma raadinayaan waxa ka dhalanaya ma raadinayaan kolka dan bay moodayaan laakiin haddana bay ku halaagsamayaan yuhlikuuna anfusahum nafyaalkooday halaagayaan wallaahu ilaahay yaclamu waa ogyahay inahum iyagu lakaadibuuna kuwa been sheegay inay yihiin marka ay leeyihiin law istadacnaa la kharajnaa macakum haddaan awoodno waan idinla bixin ma awoodnodaas been bay ku sheegayaan way awoodaan maal way haystaan caafimaad bay qabaan kolka inay been sheegaan ilaahay waa ogsoon yahay kolka maadaama ilaahay sidaa ula socdaay halaagun bay ka faa'iidaysanayaan cafa allaahu ilaahay wuu cafiyey nabi maxamedow canka xaggaa waa ku cafiyey waxba kuuma haystee lima maxaybaa dartii adinta aada ugu idintay lahum kuwaasi fi lqucuudi can alghazwi maxaad ugu idintay kuwa iminka sidaa u fadhiya markay hore harayeen nabigay u yimaadeen siyaasadooda fiiri waxay yidheen saasaanu nahay maalkii waa sidaas caafimaad ma qabno saas oo kale wey ma bixi karno noo idin bay yidhahan inaan iska harno nabigu wuxuu yidhi waan idin idin kolka idin nabigay ku fadhiyaan kuwaas been bay sheegeen nabiga idinkiisa ku fadhiyaan markay harayeen haddaad fiirisadna waxay ku cudur daaranayan waxba kama jirin waa sida iminka aan soo sheegnay yacni waxa weeye haniimadana haniimo sahlana ma aha masaafadana masaafo dhow ma aha taasaa ka reebtay faa'iido adduunya uguma jirto taasaa ka reebtay kolkaasa waxay ku cudur daarteen waxaan jirin waxay yidhaaheen anugu ma awoodno saasaanu nahay yaa rasuulallah inaga dah noo idin inaan ku harno cudurdaar baan leenahay dee nabiga calayhi salaatu wasalaam waad ogsoontihiin dabeecadiis waa iska sahlantahay maadaama sidaas loola yimid ruwaayaa iska fadhiista kolka nabiga idin ay ka heleen iyay ku fadhiyaan kolka nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa iminka lala hadlayaa inuu u idinay inayna ficneen inuu idinka ku degdegin bay ahayd inuu shibka yidhaahdo haddii shib laga yidhaahdo isagoon u idinin kulligu way hari lahayen
كان عذر دارك كدبت أي كان كلبي كان عدان له لكن النبي مركو لو يمد واسكسها محوي اهلا وسهلا كل النبي waxa leeyahay inaad u idintid ma baahayn way ku kala bixlaan dadka cudur daaranay kii ka dhab ay tahay iyo kii kale way ku kala soocmi lahaayeen hada degdegay inaad u idintid ma ahayn kolka tiiba nabiga lagu ya ilaahay yaan wax ugu sheegaya oo leeyahay idinkaas ma toosanay laakiin si wanaagsan oo aad iyo aad u hufan إلهي نبينا ولا هذا نبينا عليه الصلاة والسلام وحالي عفى الله عنك إلهي وأكو عفي نبي محمد وحبك وما هايسته ما حد يقول إذن تالي لما أذنت له وحبك وما هايسته ولا غاسا معي ما حد يقول إذن تي وحال يقول روتيني عفى الله عنك نبي عليه الصلاة والسلام إسقط دعب وإسكا أخا وناك سميب لها كل كا سؤال أنحن oo maanta baal oo ilaahay baa ku la hadlay oo yiri maxaad ugu idintay oo qalbigiisa gowgow aan oran oo nixin yaa yiri waxba lagu ma haystay waa laga saamaxay wax dhibaato ay ma jiraan laakiin maxaad ugu idintaa leeyahay idinka ka cibaadada lawlaada nabigeena fiiri calayhi salaatu wasalaam ilaahay agti qiimuhu ku leeyahay sida loo dhowrayo yaani sida loo tixgelinayo وحب لغو ما هيستهدى واحد دنبي أم دباتك هايست مجلت ولا عفيي لكن أقول أنت تسمعهم عفى الله إلهي وعفي عنك حقا وكا عفي نبي محمد لما محيبا درتي أذنت أقول أنت اللهم أيهم في التخلف عن الغزو والقعود في البيوت ما حد أقول أنت حتى أنت يتبين أو عد هذا لك أدو قو عدار أي كو عدالة الذين كو يصدقوه رن شاقي وحي ورماه كو رن شاقي أو وحي لين لو يصدعنا لخرجنا معكم تأيليين عذر داربان لهين تأيليين كو رن شاقي أي كو عدالة أو كل كهو تعلم أدوغاتت الكاذبين كو بانت شاقي وحي ورماه كو بان شاقي أدوغاتت الرنت إذا كان سواء من لهين مركي عذر دار لغو سوى قدمي إنا تحوغا شبكة هذا إيه inaad xoogaa shibka tiraahdo waxaad arki doonta dad ay ka dhabtahay durdaarkaas bixir bakarin way jira dad aan ka dhab ahayn oo tashaday oo inayna ku raacin tashaday laakiin bixi karo taasna oo maanta markiisa oo been sheegayna way ku cadaan lahayd kolka waxa la adoona ku cadaanay markay ku yimaadeen waxa tiri waayo iska fadhiista kolka amarka ay ku fadhiyaan beenalooyin way yihiin كلك ولا بفير سيدا مركز أوكل دتك ويكو كلا صع إنه كلا صع ماوي كلك النبي عليه الصلاة والسلام والله شيء تاس أوكل إنه مردم بدعين لكن وحلوه ريج وحبه كله حبله وما هيشت قدام بملك وحلوه هيشت مجرى لكن تاس مردم بين الدعين وي عفى الله عنك إلهي وك عفيي وحبك وما هيشتو لما محيبا درتي أذنت اللهم يقعد أبو إذنتي إني فرديستان وعدالك كهرا حتى أنت يتبين أو عداد لك أدو أي كو عدادان الذين كو يصدقوه رنشاقي وحي ورماه أو عذر دارك أي رهدين ما أود نذك كو يكون رنشاقي إلى أنت كو عدادان وتعلمك الكأد أولاتد الكاذبين كو بين شاقي وحيالا أي كو ورماه إن بين كو شاقين أد أولاتد كو كا تاسوا مدوي ولوح وغا وحا سعوت عنانتي وحا جرتالي ليه لا يستأذنك وحا النبي محمد الجرتالي عليه الصلاة والسلام يجي حال كوذا نبي نوح لو برجوليا حداد فكرتي يجي حال كوذا نفط ياتكو غير لا يدين كل شيء حالك ماشي صعده حداد فيرستيد واتكو غير لا يدبل ما حي اللي ماشي محل لو صعده ودغال جهاد الهي امري يا لو دوله كلك جهاد كاس لو دوله منك مؤمنك أو مخلصك أو كذب ما أركيزه كاسي جهاد كاس إذن أمر هذه إن لو إذن النبي أمر هذه إسكتنا فإنه كفر ليستينه إذن النبي أمر هذه إنه كهر إنه إذن أمر هذه إسكتنا حتى دقال كاس قلت ديسي إذن النبي أمر هذه ما حيا لي دقالك واجب إلهي بها فرق وأن لقاهم مارما دينتي بقى لقاهم مارمان يويا دقالك ومدى نولش يدون لقاهم مارمان ويا سكستروا فائدة وليه ما دام حق إليه أمر كيمت
inuu nabiga yidhi yaa rasuulallahi dagaalka waan galayaa ii idan ninka mukhliska ama yidhaah seeftiisa horey ka qaadana buntuqiisa horey ka qaadanaya idanba ma raadshaba in loo idin dagaalka inuu ka qayb galo idan uma raadshaba iska dhaaf inuu ka haro inuu idan u raadshay ninka mukhliskaasaa lagu garta kolkaa maxaa soo baxaya ninka dagaalka inuu galo idan inuu u raadiyo iska dhaafo inuu ka haro idan u raadinaya ma aha nin toosan waa nin ilaahay aakhira rumaysan maaha nin toosan maaha kolba haddii dagaalka caynkaas oo kale ah inuu ka haro idankuu weydiisanayo waad fahmi kartaa ninkan inuuna ilaahay iyo aakhira inaysa dhabi uusan u rumaysnayn waad garan kartaa ninkan inay shaki ku jiro oo diintaba aanu ku qanacsanayn waad garan kartaa inuu waraarsan yahay oo jid toosan oo isaga oo ku kalsoon yahay oosan ku socon inuu waraarsan yahay oo leeyahay war waxaan xaggee u socdaa taasaa u geynayso ilaahay aakharana say la rabay uma rumaysano shakina waa ku jiraa oo iimaankiisa qalbigiisa ma buuxa waana waraarsan yahayo adduunyadiina wuu rabaa nabadgelyana wuu rabaa diintiina ma rumaysan kolka wuu waraarsan yahay kolka xaalkoodaad ka fahmi lahayd naftaad haddaad fiirisid xataa intaana adigu aanad imtixaanka ka qaadin bal horta ha kala soocmaan intaanad oranin waxa weeye mabda' baa meesha jira ilaahay wixii oo faray oo waajibiyey nin mu'min ahoo mukhlis ah arrinkaasi nabigi idan xataa ma yidhaahdo wuu ku dhaqaaqa iska dhaafa inuu yidhaahdo waan fadhinayo fadhiga idana inuu ku dhaqaaqa xataa idan uma weydiisto ninka asaas oo kale ah waqtiga saas oo kale ilaahay wuxuu faray nabiga inta u tago idan isi aan ka haray cudurdaar ii sameey waa niman toosanayn wey kolka haddaad sidaa u fiirisid waad kala garan lahayd bali labada ayadoo soo socota saasay ku socota markii hore waxaa la yidhi inaad u kaadasid ba ilaa inta ka kala caddaanayaan tan labaadna waxaa weye xaaladii markaad fiirisid inayna toosanayn waad garanaysaa bali maxay ninka mu'minka ah mukhliska ah siba lagu yaqaana sidaa lagu yaqaana si aanan ahayn ninkii ku soo baxay iimaankiisa waxbaa ku jira kolkaa waad garan lahayd inayna toosanayna munaafiqiin jirin idan aan fadhiya ninkuu la yimid amar ilaahay faray inuu ka haro weli cudurdaar baan leeyahay maba yidhaahdoba ninka mukhliska ah kolka aayadda labada ay saasay u hadlayaan laa yasta'dinuka idanku weydiisan maayaan nabi maxamedow aladiina kuwii yu'minuuna rumaysan billaahi ilaahay rumaysan walyawmi alaakhiri yoomka maalmaha ugu dambeeya rumaysan kuwaasi idanku weydiisan maayaan an yujaahiduu inay jihaadaan biamwaalihim maalyaalkooda inay kula jihaadaan wa anfusihim nafyaalkooda inay kula jihaadaan idinkaa weydiisan maayaan oo ku oran maayaan yaa rasuulallaahi inaan jihaadka ilaahayna faray inaan galno maalkayga iyo naftaydaba aan ku bixino noo idinku oran maayaan iska dhaaf inay ka fadhiistaan inay idinkaa weydiistaan way ku dhaqaaqayaan wallaahu ilaahi caliimun ku ogaansho badan wey bilmuttaqiina kuwa isaga ka cabsada oo caradiisa ciqaabkiisa iska jiraa waa ogaansho badan yahay waa kuwaas ee iimaankooda kaamil yahay oo jihaadka rabo wey kuwaas waa muttaqiin kuwaas kuma weydiisanayaan kuwa ku weydiista haddaad aragtid jihaadka ma galaa waxbaa ku jira hadduu yidhaa aan ka haro iyo idanna way kasii daran tahay inamaa yasta'dinuka waxa idanku weydiista un fi takhallufi can iljihaadi jihaadka oo laga haro waxa idankaa weydiista un aladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaysnayn billaahi ilaahay aan rumaysnayn walyawmi alaakhiri yoomkii dambena aan rumaysnayn iimaankooda ilaahay ay rumaysan yihiin inuu ilaahay wax kasta wado inuu isaga wax kasta ku shaqo leeyahay ma rumaysna aakharana ciqaab baa jira ama hawaab baa jira waa loo socdaa ma rumaysna kuwaas yaa idinku weydiista oo fi takhallufi can iljihaadi kugu weydiista
jihaadka in laga fadhiisto oo laga haro kuwaasaa ku weydiista kuwaan ilaahay aakhiro rumaysnayn oo wartaabad ay shakisay quluubuhum quluubtooda ay shakisay oo waxa weeye maxaan dadkan u dhiboonaya maxaa dhibaatadan loo gala maxaa faa'iido ku jira ma garanayaan quluubtooda dadkan in la baabi'inayo in la halaagayo in dhibaato loo geysanayo waxaas yay rumaysan yihiin adduunya arkaya kolku waxaan inay sax yihiin oo faa'iidadooda adduunya aakhiraba lagu liibaana oo xagga ama xagga rabbi ka yimid maba rumaysana walidaalika fahum iyagu yataraddaduuna kuwa noqnoqonayo wey fii raybihim shakigooda dhexdii bay noqnoqonayaan oo mutaxayiriin wey xaggeeda u dhacdaan wey shaki baa ku jira maqumaa waxaan ma toosan yihiin mase ma toosan waraarkaasay ku dhex nool yihiin hadday ka haraanna waxay arkayaan meeshii inayna waxooga dhibaato tahay hadday raacaanna inay tahay biime iyo halaag kolka siday yidhaahdaan garan maya kuwaas iyaa inay dagaalka ka fadhiistaan ku weydiista kolka waa laba idani wey kuwii hore waxaa la yidhi inay dagaalka galaan oo maalkooda iyo naftooda ay ku bixiyaan idanka kuu weydiisanba maya iska dhaafa inay ka haraan qaarna waa maxay inay ka haraan bay idankuu weydiisanayaan kolka kuwaas ma aha kuwa waxa weeye kuwa sidaas oo kale laa yuuminuuna billahi walyawmi alaakhir wartaabat quluubuhum fahum fii raybihim yataraddaduun kolka haddaad xaalkooda u fiirisid nabi maxamedow haddaad xataa xaalkooda u fiirisid ninka mu'minka sida lagu yaqaan ee ninkaan mu'min ahayn sida lagu yaqaan marka xaalka fiirisid way ku kala cadaan lahayd inayna daacad ahayd marba hadday yidhaha aan ku fadhiisano mu'minka caadadaas ma laha kolka marba idinba hadday ku weydiisata saas u garan lahayd wey kolka inaad sidaa fiirisidna way ahayd oo nabiga taas lagu baraarujinaya mabda' lagu soconayo wey nin ilaahay ka cabsanayo ilaahay rumaysan arrimahan oo kale kuma weydiisanayo inuu ka qayb galo maxaa yeelay waaba diyaar buu u yahay nin ilaahay aan rumaysnayn iyo unbaa ka suurooda inuu yidhaahdo iidan aan fadhiiste kolka intaas nabiga calayhi salaatu wasalaam iyaa lagula socdaa iyaguna waa la sheegay xaalkooda kolka wili arrintii way socotaa walow araaduu hadday doonayaan alkhuruuja bixitaan ma awoodna yidhaahdeen ma ogta law istadacnaa lakharajnaa macakum bay yidhahdeen haddaan awoodno min naaxiyati almaal wa min naaxiyati asixa waan bixi lahayd kolka ilaahay wuxuu sheegayaa kuwan kolka horeba kuma talagalin inay baxaanba kolka hore kuma talagalin walow araaduu hadday doonayaan kuwan munaafiqiinta ah alkhuruuja bixid oo duulaanka inay u baxaan haddii ay doonayaan la acadduu waxay diyaarin lahaayeen lahu lilkhuruuji bixiddaasi waxay u diyaarin lahaayeen cuddata wixii cuddo ahoo loogu talagalay loogu darbado cuddadu waa waxaad ugu darbatid wey ood u diyaar garaysid oo ah nafaqo oo ah hub oo ah neef la fuulo wixiiyo idil iyo u diyaar garayn lahayen nin musaafir ah soo ma tabaabushaysto wuxuu ka safri lahaa kolka kuwaan waxaa la yidhi inayna bixidaba rabin waxaad ku garanaysaa markii amarka la bixiyo layidhi ha la baxo wax isbedel ah laguma arkin fardahoori meeliiba iska joogaa sahay ma uruursanayaa hub ma gadanayaa sidii kolka hor intaan amarka la bixin ay ahaayeen wax isbedela kama muuqdo haddii ay bixidda ay rabaan waliba makdam haba loo cudur daareen niman diyaar garoobayo oo alaabtii ee waxay fuuli lahaayeen iyo sahaydii iyo wixii wal diyaar garoobo reerka tabaabushaysanaya ilaa ninka inuu soo noqonay in kale la garan maayo sidii baa lagu arki lahaa sidii laguma arkin sidoodii hore iska yihiin iyagoo muruxsan oo socdo unba nabiga u yimaadona yidhaha saasaan unaa haddii ay ka dhab tahay horta ba way dhaqdhaqaaqi lahaayeen dhaqdhaqaaq baa lagu arki lahaa isma ay bedelin taa nafteeda waxbaa lagu garan karaa taa nafteeda waxbaa lagu garan karaa ilaahayna waxbaa ka qarsoon ilaahay wixii jira yuu banaanka u soo saaray nimanka ay qabaan walow araaduu alkhuruuja bixitaan haddii ay rabaan inay duulaanka u baxaan la acadduu way diyaarin lahayen lahu lilkhuruuji cuddatan wixii cuddo ahee loogu diyaar garoobo oo loogu darbado iyay samayn lahaayeen wey
وصحيحي إيو ناكي الفولي إيو غبكي إيو غيره ولكن سلوون نغيه كره الله إلهي باك علي من بعاثهم بحيتان كوري أي دولان أبحان إلهي باك علي ولذلك أين إبحان مدون صوبت أدوني وارين وحوي إلهي ما بحيتان كوري علي أين إبحان إلهي رأيك منه سببت أبي حيتان كوري لوهاتي صوص عطمها وحكا لهم مثلا kolka awrkaas waa la dejisay ay hore ugu socoto kolka dadejinta awrkaas la dadejinayo socodka lagu dadejinayo si ay meesha la rabay ay u gaadho ayaa awdaca la yiraahdaa kolka mafcuulkeeda wuu go'an yahay kolka maxaa laga dhigay namiimiyaalkii isku dirdiryaalkii ay sameynayeen ayaa laga dhigay awr ay fooshin yihiin oo kale macnaha fiirisa waxay leedahay isku dirdiryaalkii ay sameyn jireen namaa'imtii yaa laga dhigay rakaa'ib awrta la fooshin yahay oo kale oo sidaas loo dedejiyo kolku waxay dedejinayaan waxa weeye bimacnaa isku dirdiryaalkaasi iyay si degdeg u sameyn lahaayeen si degdeg ah waxaa laga dhigay isku dirdiryaalka inay yihiin awr la fuulo oo la dedejinayo dal lagu gaarayo oo kale laga dhigay wala awdacuu way dedejin lahaayeen rakaa'ibahum waxyaalaha ay fooshin yihiin waa namaa'imtii wey nimankii dedejin lahayn khilaalakum idinku dhexyaalkiin dhexdiina baynakum yani ida dedejin lahayn kan ku dir kooxdan kooxda ku horgee kooxda koox kale ha shakiso xaggeen u soconnaa halisuu weydiiyo saas oo kale iyay samayn lahaayeen ilaa nimanka niman daacad mehe yabquunakum waxayna idinla raadinayaan alfitnata fitna idinla raadinayaan kolkaan inaad idinku dhexdiina isku kalsoonaan weydaan isku dhacdaan inaad fuliyoodo taas idinla raadinaya saasay ahaan lahayd hadday idin soo raacaan dhibaatooyinkaas idin gaarsin lahayd maa zaaduukum ilaa qabaalan kow wala awdacuu khilaalakum laba yabquunakum alfitnata fitna idinla raadinayaan iyagoo fitno inaad baaba'daan inaad halaagsantaan inaad soo noqotaan inaad magaciina baabaa ku hayso wafiikum idinkiina soo duuli hadda ee duulaankii Tabuuk ku jira dhexdiina waxaa ku sugnaaday samaacuuna kuwa maqlid badan lahum liajli kuwa haray ee munaafiqiinta ah dartooda u maqlid badan wafiikum idinku dhexdiina waxaa ku jira samaacuuna ku maqlid badan xadiidakum warkiina maqlid badan waxaad ku sheekaysanaysaa ururiya maxayna u maqlayaan kuwa haribili aad u geysa saasaa la yiri saasaa la lahaa hebel muxuu u haray hebel saasa oo ah wixii sheekiriba raba ina ururiya oo waxa ku jira kuwa munaafiqiin oo kuwa hari aan hayna soo raacay bajir oo laakiin warka muuminiinta ku ururiya oo kuwa dambe u gooy saasaa la idin lahaa saasaa la idin lahaa saasaa la idin lahaa يعني كجر وفيكم دحدين وحا كجر سماعون كم مغلد بدن حديثكم وركين مغلد بدن لهم لأجل هؤلاء كواس متخلفين جدرتوا مغلد بدن وكواس أرهريا كل كان مفعولك واقعون يسماعون أما ما هي مفعولك لهم تبكدك لهم تنفس هذا مفعولك كدك ولام توحوي ولام التقوية يلي هذا وفيكم إذنكم دحدين وحا كجر سماعون كون مقلد بدن لهم إذنك إذن مقلد بدن أو برك إذنك قرأ دقيست يا كجر إذنك إذن مقلد بدن وبرك إذنك أروح سامي وبرك جينا كواس وإذن كل حجران بالي والله إلهي عليم كل أغاشي بدن بالظالمين كو ظالمين تا وأغاشي بدن كل كوا سماعون تا هدان إذنك أغين إلهي أنا أقبلي وظالمين تس أنا لسه عليه وحبيبي يالي معي واحد كتر يعني مجرد إذن كورك إذن كقاعدان ورك أروشا كل كواس إذن كنا حجره والله شيء لقد ابتغوا ولي قال هذا الحياة كوي هريوي ولي يكون كلا لشقينا لقد ابتغوا وحي راديين
الفتنة فتنة راديين إذنك إذين رادية من قبل هذه الغزوة دولان كان هرتيسة وحبضا من فتنة إذين رادية وتاريخ ذو الله سعطا بدر مركي اللي قد قال لما يدقال كذا وكو يري غر هؤلاء دينه وكهري وساس وكهر سمي أحد مركي اللي جوغي دقال كذا وكي عبد الله بن أبي سدح بقول لسوا النقري سدح بقول لسوا النقري دولانكي خندق وكل المشركين لسوا حد يجي يهود لسوا حد انت ميلود اي فتنة مؤمنين تقول راضيين لقصوا بالله بيعة العقبة الثانية واقي المسلمين النبي قال أولا قالي نمينك أنصار تعال لقصوا بالله يعني وحي كود ذلك جيران إن المسلمين تفتنيا تي يقولوا وضعهم تي يقولوا وضع يعني منافقين تمركز وحي كود حول المؤمنين تلاحظوا يجوا أول ولي بالبهر دمشت محايا لي وحي يهين وإذل المؤمنين تؤغين إلهي بأوغ بنانك وصوص عارة هبل اللي أورن ما ويسكرنا يعني ماشي فرديان ما قال لما شاب ولا سكور إيمانه سياسة ما بال قوم من باليرا قوم كصدع إساس إما كم قعد اللي مش هيك ولا ورجع قارن لك قود أهم الله هذا ترى هبل وأديك بيه كم واحد سمي ولا سكور وما عرفتي أرنت ويس بدليسه ومقلي ماشي فرديا والو دغ هذا وحبوا أم قرصون تاسع قدر كل والو دغ هذا كليه وحي سميانه ولد لو يسوقيه لقد ابتغوا الفتنة ما أنت كليه ما هي فتنة إذن للراديين أي رادية من قبل هذه غزوة هرته إن بعضان عسكر بعضان أو الشكدان أو أساس أو كل إذن راديين وقلبوا ويقد قديين لك أدق وحي كوي قد قديين نبي محمد الأمور الرماه كوي قد قديين سين وحقبنا سين أهغرتنا سين أشرقنا سين أقادنا إيه هبينا كسو جيدنا عراء فرابط ترى امسي أرنت هذا قد قديين إيه ملك السكاقي مادة إيه كوي قد قديين ساسي أرنت هذا عيد بالي ولي السيدي بالله إذا سنة كيسا قالت لجو وعجائب بني آدم كاد أركيشت وادب بدنيا وقلبوا لك أموره يكون قد قديين بمعنى أنت تشدين أي شرقولك تسميين أي هغرت تسميين خيانك تسميين وحاسك سوى فكران أخرنت قد قديين معنى أنت أسوط تغام برأيك لبدشا سيدين يالنا سيدين وحوقبنا سيدين أبابينا سيدين أغهرتنا إيون ولا أركيني ساسوك ليس منجل حتى أنت جاء الحق حق أجماده حقي أو يمهده أو نصر جاء أو بظهر أو موقده أمر الله إليه أرن كيسي أو دين كيسي إيو جد كيسي إيو إسلام كي أو موقده إسلام كي مكوها موقده وآخر قلي إيقن وحي بيوتا أدونكو إذن بامانت واكفها في وقالوا ودوكسون يهي دين إسلام كي إنه مانت حوق ليري سنة كي سقالات بالجوة إن قراش لقبتي طائف إيه هواجن إيه ثقيف وحي ذا لقبتي وحي يذل ولا لسعرا إنه إسلام كي موقضي أو قوليشتي ويوم موقته كل كسيء ورقرق يوم ميل علا لقتل ساسي ورقرق جيران حتى جاء الحق إلى أن تحقق يماته وهو ظهر وظاهره نصر إلهي ويماده حقه وظهر أمر الله إلهي أمر كيس ودين كيس أو ظاهره والحال أو ظاهرهم إيقونه كاهرون كوة كهانا يأيين مركو حق سلاء وظاهره بكهانا يعني معلن كسب الجول بأسوه معلن كسب عزي بأسوه المسلمين معلن كسب مقع بأسوه إيقونه بكهانا يعني ما يشي لجي فان عذر لابتي كبكا وحي ربان مير قليا سكة سدي وحي هذا المير قليا كلك إيقو كهانا ونجع الله إيو حقين يمت أو أمرك إلهي دين تسن أي ظاهرتي أو ديما يدل بك ظاهرته وككر مقت كلك حال كل سلاسوي كلك نعرس واجري ومنهم من هؤلاء المنافقين تهرتي وحكمتها
duul baa ka mid ah duul kale la sheegaya kuwa aan soo sheegnay banaanka la soo dhigay ومنهم waxa ka mid ah munaafiqiintaas oo haray man ofba ka mid duul ba ka mid ah yaqulu yiraahdo idan li idan ya rasuulallah في القعود عن الجهاد إذن أو ولا تفتني هاي فتنين أو فتنة هاي يقول أرنت أسوأ وقصر وقورين إلا أرنجري منافقين كما الجد بن قيس اللي يرى الجد بن قيس نبي غيري هل لك جد بن قيس هل لك في جلاد بن الأسفر نمك بن الأسفر روم اللي يرى هذا كو روحوك بدن قلفسن إن هذا لدى على انتظر كورا محي كل تعيبون كل قاسر والله يا رسول الله أنا ودك بأي يقانين بور وحي بأي يقانين بور هوينك وانكم من هايبور هذا أكن منك على عدد رومك هابلهود يهوينك بور كما سمر كرول أصل لنبابا كما سمر كرول لي يقام كل واحد يشاء حولان بحين حولها اللي يقارب وفتنة يقول رذي وان كفر نوبيا وان كان كفر نوبيا يقول رذي نبي قواه يا بسوء ولا هذا نبي قواه كوه الله واي انتو شبير يوسك قلت هذا الضد لوين ولا هذا ما بل وحو كوير دارنا فيه كوسا سوكلا كجري ضد وين او ما انت مركز ارين وين والله بل نوين وحا سوكلا مكوير دارن كرا انا قوال لي يقام بول عربت ويتقانا ناقها سدان اركو وان كفر نوبيا وحاران ايغون واد اكسونتاي كلك انت فتنوبي لها inaan fadhiyo idan oo fitnaha igu ridano fitnaha igu sabab noqonin xoolahan hal iga qaado taas oo kale soo jeedi nabiga lama soo jeedo shibbu ku yiri hadal waxa laga yiraahdo ma hadal nin weyn ma nabiga waa yaabo oo isku yaxyahay waa ka tag ku saas oo kale ku jiri yaani fiil bani aadamka waqtigaas dad saas oo kale ku jira ninka islaam buu sheeganayaa saa u hadlaya tan kale wuxuu yiri haddaan maanta haro anigoon idin ka haysan waxaan ku dhacayaa fil macsiyo idin baan ku dhacabo maxaa yeelay idin la'aan ma adag idinkaaga la'aanta daan fadhiisto adaan ku khilaafay kulku waa macsiyo taasina meesha ku jirtaa haddaan taga fidnadaasaan ku dhaca adigoo aan idin haddaan fadhiistana waa ii fidna labaad oo macsiyo kale labada jeer waa ii macsiyo haddaad ku raacana macsiyaan ku dhaca fooxuma haddaan ka haran idin la'aantaad waa macsiyo kolku waxaan ka codsanayaa buriye idin aan iska fadhiyo kuwaas oo kale ku jira ومنهم من هؤلاء المنافقين وحكمت من دول يقول يراد إذن لي يا رسول الله إذن في التخلف عن الجهاد إذن ولا تفتني فتنها يقول رذي ولا توقعني في الفتنة فتنها يقول رذي ناقها سانكم من هدان تقول ما دافع يقول هذا إذن الآن تهدان فردين ومعصير كل فتنها يقول رذي كوسا سو كلا يراد جل أو نكا سو مرحا هنجر كل كإلهي وجواب ألا هو سقطوا ويدعين كواس في الفتنة فتنة لحد يبي كل دعين هذا يبي كهوب تنبلي هذا اللي هايين فتنة كبقينا نو إذن هذا فتنة كجران بلي واحد يقول جران سد حشي بعد فيرس مرب هدي ونمن كمان نمن قوستي إنه فريستا تاسوا فتنة تنقل إنه كدي رذا إنه نبي كإذن طلبان علشان أرنتان درتك وعن أي شيء درتك تان نفس الوافع الحمول نرد وحكوا هذا ما إن النبي كل دي ردان أرنتاس يرادن وحى ساجره سادراج النوغ إذن تاسن وافتن تنسد هذا حوي تعفن تاع كل عام وحي كفى إليستين إني بربغان إي سياسي حمان إذن بيهوش ولا يكسمعيان كل كهدي في النك بقيين حد يبكو دحجرا فتنة يبكو هوبتين بعد يقول لي وحبتي قاجنيسا لكن إلهي أكتيس مركز ذا وهذا يمي فتنة كو دحجرا فتنة أوهم بيكو دحجرا ألا هو سقطوا ويدعين ألا هو في الفتنة فتنة دحدادون إيه سقطوا كو دعين وي فتنة يبكو هوبتين وإن جهنم لمحيطة تكوبتوي بالكافرين كافرين توي كوبتايو
أفرت جهة كحكتها قمتي أمها ليه إني قمتي له لكن أنا كسر كسر قوتي يجوا حمود يعني إني سعداء أي في عينه هنا توصيه لكن جهنم بفرت جهة كحكتها صار قوتي قمتي أمها ليه أي كل عليه وحكى الأمهار يجوا يسعداء لكن جهنم قوتي كل عدي أمها ليه maxay asbaabta jahannama lagu galay wixii jahannama maanta lagu mutaysanay idil bay sameeyeen kolku waa niman jahannama afar jaha ka xigto way ku dhicidi un baa hadho ay sugayaan ma wax kale oo hadhay ma jiro iyagu way soo socdaan xaalkoodu waa sida ilaahay agtiis wa inna jahannama la muhiidatu tukoobtiyo bil kaafiriina kaafiriintu waa iyagu way kolku kuwa sidaas oo kale ah intu sibka xaalkoodu la sheegay إن تصيبك هديك أصيبت النبي محمد حسنة حالة وناجر قول يغنيم يا سوغارتي مركا دوش هدي تاكو أصيبت تسوء ويحمين نساء حسنة ذاتي هم إيغ ويحمين نساء ويكحماني قلبك حنونا هدي لذا مؤمنين تبا سوء قوليشتي مؤمنين تبا قعان سرهي إيغا ما أنت مركز غنيمة سوهلي بسوي ويدمنا قلبك ويحمين نساء والولي والبهار وإن تصبك هديك أصيبته مصيبة هديك أصيبتنا ومثلا قول بالسواي غنيمة لسواي والدولي يقولوا بحورنا قد أخذنا وان قادني أمرنا أرنكايق أنا نخسي وإنا ندكتونان إنا مشاكل كأسك إلى علينا وان قادني من قبل إصابة المصيبة بل سيئو هذا في عجبته مصيبة أن أنت هنا أصيبين كهر يعني أرنك يقعدني أرنك سوا معي إنا مصيبة أنت هنا دعين يا أرنك يقعدني ومعي أنت هنا دعين ما نكوت شني إنا كارن كو تنكر ما دام مصيبة يكون عيساي قال لي قعان سريسينا كعمل هوس عنك لي لأن أنت هنا مصيبة دعين oo kolku weyn ogsoon yihiin islaamku oo musiibo ku dhacay oo iska ladan ina iyagu la xiranay min qabl maxay u jeedaan macnaha markay musiibada dhacdo kadib haday yiraahdaan waan la xiranaynaa waxa loo fahmayaa dad dhibaato soo irisi kon ka daacaday kolku hore lama jiray markay wax dhaceen ee nolosha xidhan baa la oranayaa kolka gaalada agteed qiimo ku yeelan maaya laakiin iyadoo adduunkii musiibada baan dhicin haday hoosta kala xidhaan waxay leeyihiin inagu waan ogsoontiin kolka horba inaan la jirin waxaan ka baqaynay baa dhacay idinka maanta gacan sareeyo kol hadda maanta gacan sareeysan inaan hore hoosta aan idin kala xiranay waad ogsoontiin kolka min qabladu waxay faa'iideynaysaa waxa weeye intayna musiibada dhicin waan ka tabaabushaysannay waan ka harnay tan kale intayna musiibada dhicin يا كوا قعان تسرّيب الكرب هوس أهان قعان أولي هلاني كل كوينو قدرية وحيلين نمن كاسوي توصنايا نمن كل كرب أنا قلنا لجري أهايا إيه أورنايا كوكا ساسي قعانتي عن كويا هلاني إنو عن فعيسة لكن مركي مصيبة دعاة كدب قال هذا ويفهم يان وحيلين كوا المصيبة دي بسوء إردي هدين مصيبة دعين أنا قلنا مصور راعي كوكا دانتو دي وطابة الأورنا لكن هدين عن دانتا يدا وذنين أو نقطة يكدب ينقرني نوي كلك وحوي ساسي أجدا ماشي كذا بالفير وإن تصيبك مصيبة هذه مصيبك أصيبته يقولوا وحي أورنيا قد أخذنا أنا وأنقاذنا أمرنا أرنك هيك أو دكتوني ده إيوه قال هذا سبارسي أو الهوس اللي قال حريرة من قبل إصابة المصيبة وأنقاذنا وما أنت وان في عنها وان فرحسنا لباتي وان كبت بامي ويتولوا ويجيستا حقيقة جيستا ماشي أي كوشة كيسنايين وأرمها سيكون هذه ما كجيستا ويتولوا ويجيستا عن متحدثهم وعن مكان اجتماعهم مكان أي كوشة كيسنايين يكون كل من يكجيستا وهذا الكاس أي كجيرادين قد أخذنا أمرنا من قبل يكجيستا ويجيسنا إلى أهاليهم وأصحابهم بيجيسنايين والحال هم إيجو فرحون كو فرحسن أيين إني نبتقلي ما أنت إهلال إني بحي قارين كو فرحسن مؤمنين معي كو فرحسين لا بشي إني إيجو بدبابي إني مؤمنين مصيبة كو دعسي إيجو اللي بدأ كو فرحسن
ayay dadkoodii u gudoomayaan ilaahay subxaanahu watacaala waxba kama qarsoone isaga waxba kama qarsoone ويتولوا ويجيستان ماشي كل شيء كيسنا يعني هذا اللي ذات كل يجين يقول ما يكجيستان وهم يجوا أو فرحون فرحسن ماركزة إن مصيبة كنا بدقله هي مؤمنين إن مصيبة كل عاري أي كفر حسين يجيستان كل كا واحد ترى هذا بدي حال كل واسطة صدق إذا كحيي كل كان النبي محمد هدو حال كل سدايا فيلم بدمود إن لقى صادور كل كان النبي محمد ويا الله عليه قل ده بالله أدعو جوابه لا يصيبنا أنا خدام المؤمنين تقول قايل بنا أصيب معي إلا ما شيء معي كتب الله إلهي قري لنا أنا ناقر وحوسق ناقري مسلحين أدوية كسرنتا ومسلحين آخر أي كسرنتا كأمان عصيبا ما دام أنهم مؤمنين هاي وأسوق درتي أن أودع علمينه أمر كيس أنفلون ليناي وحي النجو أصيباي دن الدنيا دن آخر أمبنا وجرت وعن دن تايد إنكو وجرت وحي بشر موري شر ما بقى شرتي بالسوق غير الأيه شرتي بالسوق فهم الأيه وحي إلهي درتي كوكو أصيبه ما أركيزه هدو خيري هينا وأقول آخر يقول الدنيا هدي دبعت أي تهينا ومثلا واد كل متين واد كل شهيد ودي وحولي وجنعك كوتا لوي أدلق القبعة له كلك وحن دعيا منك إلهي درت ورد كل دعيا ماشى شر ما بتي ما عدو دبعتنا خير أمتكم متيسنس وحي خير أي خير بتكم متيجت وأن لبد عمتوي كلك وح شر لي لا ما بجر وح شر أيوتها منك أدويدا عن النور وأن إلهي كحرني وحي كل عاي آخران فائدة أملها أدونكم نواهوغي لكن إلهي درتي هديت هاي مسلحة الدنيا وهدد بوليشتين إيه مسلحة آخر لود أمور هدي واحد عانا وحوي وقول آخروي وأمسداس كل كميش أركتدي باكل الدول قل النبي محمد لن يصيبنا أن أصيب معي إلا ما شيء معي كتب الله إلهي أقري لنا أنا نقر محايا لي ومن المصالح الدنيوية والأخروية هو أسقى مولانا ناصر كيقاب أسقى ناصر كيقاب وحال وحي أسقى نقري وهرين نقري أنا أصيبي أسقى ناصر كيقاب كل بيقول أركتي بك الدنيا وأنقول وي بيكسوا بابين بلليه وده جنة تجيهد وأدونك بلا يقري وبري مركز جنة تجانا نفسك بعد أركان خير كأي متجتان وكل كلية أورن أي آخر إله النعيل مرد مع صوت منه موحنا ميل نويل وكل كلية أورن أيوه كل صدا أصل إياك ليه ويكو بابا يعني كل أركتذي بما أركتذي بإياك للدول وعلى الله إله كركيسون فليتوكلها تلصارته المؤمنون مؤمنين إلهي أرنكو وديبت أرجو تبابو شيء سو أنت عقل جاهو كوسين سميسو جدكي قرشها سميسو وحكى السبب سميسو أنت ذكرت عقل جاه دجال إن الدباتة أكبد بعد ونادم عتشت كل دجال لكن أصل المركز وين ترى إله وأنا عقل جاي يو حجرت قرشة أنت سيدكتي أنت كالإله عليك صارنتي أرجو تعالى صعونه يسده فالكتان إله هذا سألت الله صارت بيحكي كوي ما دل بواقع وكل نبي عليه الصلاة والسلام وحويل عجبا للمؤمنين عجبا للمؤمنين وحول إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمنين وحول المؤمن كاللي يابو لي حدي وحال الغفر كل عضاء أسيبتنا وقول إي وعد أسيبتنا إلهي بأقول شكريا خير بأوتا حدي دباغت أي دعدنا وكسمرها خير بأوتا وليس ذلك أرنكاس معها إلا للمؤمن مؤمنكم بأسكله إن أمره كله خير عجبا للمؤمن إن أمره كله خير حديثك مع الناس واصلات أمر كيس كل كيس هو خير أرن كيسو إذيل وحشر لي رما بجرام تذكر أركي الإسلام المدينة وحشر لي رما بجرام قبل كيسه يعني مؤمن كدوب صعده وكي سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام وحيري ما أصابتني مصيبة
إلا وأرى الله فيها 4 نعم علي ولي مصيبة يقوم الدعم إلا هذا يقول عضو أفر نعمان كده حلابه وهو يري أولا لأنها لم تقع أكثر مما وقعت أنت إمنك أيتها مصيبة إنك بدن إلهي كما تجنبه أنت أنا يقول عضو إنك بدن ضبي هاي تتاب أنت إمنك يقول عضو هديتها مرك أدونك فيرين أنت إنك بدن ضبي يقول عضو أنقرنا ونعم ثانيا وهو يرتنكلا عن أبو سمري وهو إن الله حملني وصبرني عليها إلهي وحو يقول لي متى حتى حمولي كرو أو كسمري كرو تبدأ مركي مصيبة دعا عقلي كتب أو وريرة إسديله والولي والبها وحو يري ودنا أن كذبحه أو أبو سمره أو محاساس مصيبة عن إيسا من يو إلهي إيسيور تاسن وامد تنكل وحو يري إن الله وعدني فيها أجرم أجر ويقدح جبهه يري مصيبة أجر ملك يال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إلهي ساسير تن أفراد وحو يري ما أركيسا إنها لم تقع في ديني بل وقعت في دنيا يقول مصيبة الدين كده ويقرب مرتي الدنيا دي كل عاد الدين كده مصيبة يقوم دعينه شك إياه في الدنيا إياه وحاس يقوم دعينه دين كده ويبد بس أنت إيمان كده ويجوا حق برية الدنيا دي كل عاد كل كاو وحيروا ونعمة أفراد أفرتها النعمة وشيء ولذلك بيقول لو كان الصبر والشكر بعيرين مصيبة أو لقوا سمره هدي أو يهيبوا سمر كسرتها الكاسعر إيوه نعمة أو الإسيان كل شكريه شكرها هدي اللي قد قصرتي نعمة لغا بري عافمات قول أمان وحكسر لقوا شيء شكرها كل شكر اللي هيد برتي اللي قد هالكاتاج مصيبة يوم أكون داعي سمر كي أبكو سمر اللي هيد هالكاتاج أو يهرت اللي قد لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما أركبه وحردان كما قالين مت كان ربان فوري لهاب مصيبة أو لقو شكرية لقو سمرة رتقاذ إساك هدان فوري جنة ميقيني يعني نعمة أو لقو شكرية رتقاذ هدان فوري كل بجنة ميقيني قال كم مت كسو أسكو كيمدو لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما أركب لكن رسالة أفكر جيران وحن بك ماشي كيف فكرين ما بقى والله سبحانه وتعالى أعلم